برنامج كنا عوان كيس وارك سما فليا waxaynu maanta wax iska weydiinaynaa oo aan runtii u soo kacay inaan ka hadlo maxay ku kala mudan yihiin Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi maxay ku kala mudan yihiin Cumar Carte iyo Maxamed Siyaad Barre maxaa qaarna loo dhacdalayaa ay nacdal ku mutaysteen qaarna loo amaanayaa taariikh beena iyo bug ah lagu sameeynaya intaynu is weydiinaynaa waa inta shacabka iyo ummadda iyo dhalinyarada runtii waxaan dareemayaa in taariikh beena muddo kooban la doonayo in lagu sameeyo dadka dhagahooda lagu shubo waxaan jirin iyo ilmada yaxaaska la isaga ohiyo dumarka iyo caruurta iyo maatada iyo dhalinyarada aan taariikhda hayn in waxaan jirin dhagahooda lagu shubaaba ayaa ii muuqata waxaan barnaamijkan u soo qaatay inaan kaga hadlo xabaalihii iyo aaskii aynu naqaanay in duco lala dul tago iyo naxariis nacdasha lala dul taagnaa arrimahaas aynu doonaynaa inaynu bal taariikhda Cumar Carte waa kuma ahaa Siyaad Barre kuma ahaa maxay nimankan isku dawladaha iyo isku xukuumadaha u shaqeynayay maxay ku kala mudnaadeen waxaa midna mudnaan ku yeeshay loogu duceeyo lagu amaano taariikh loogu sameeyo midna muxuu ku yeeshay mudnaan lagu habaaro lagu nacdalo lagu caayo qarandum isku noqdo ummaddu inay isweydiiso way Somaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba runtii laba isu qaban waayay aniga shakhsiyan saddex shay baa isu qaban waayay saddex shay ayaa isu qaban waayay waxay ku kala mudan yihiin Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya oo Cabdi Xaashi waxay ku kala mudnaadeen laba nin oo isku xukuumad ka tirsanaa oo midna madaxweyne ahaa midna ra'iisul wasaarihiisii ahaa iyaguna waxay ku kala mudnaadeen ee midna xabaashiisii duca ku mutaystay midna nacdal iyo ummadan oo Soomaaliyeed oo la nacdalo oo ku mutaystay labadaas way isku qaban waayeen waxay isku qaban waayeen waxa nin ummad dhan oo Soomaaliland la yiraahdo 4 milyan iyo santiga leh madaxweyne aan u ahay xabaal guudkeed oo qabyaalad bareera oo aan lala gabanaynin la dul taagan yahay iyagana wax qabyaalad u diiday saddexdaas way isku qaban waayeen waxaan u maleeyaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inta isku qaban weyday iyana way isku qaban weyday waxaan doonayaa inaan bulshada iyo ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed ba u soo bandhigo bal taariikhdii Cumar Carte iyo tii Maxamed Siyaad Barre iyo bal waxay ku kala duwanaayeen bal inaan soo bandhigo waa kuma Mahdi Cabdi Xaashina waa kuma laba nin oo mabda'a ka midaysan aragtida ka midaysan isku wax doonaya isku xukuumadu shaqeeya isku magaalo jooga waxa midna uu ku noqday qarandumis ee loogu tilmaamayo daaqood caada qaata ah midna uu ku noqday haliyey geesiya oo isaaq u maqan ilaa waa isaaq Somaliland isaaq u maqan oo haliyey oo mujaahida oo xamar inoo fadhiya anigu taageeran waay kuwa dhageysanaya ee dhagahooda ku maqlaya ee shacabka u tumaya ee aan ka jawaabayna iyagana garan waay Maxamed Siyaad Barre iyo Cumar Carte qaali waxay soo haayeen madaxweyne iyo wasiirkiisii waxay soo haayeen madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisii u dambeeyay haddii uu Maxamed Siyaad Barre dambiile ah hadduu isaaq xasuuqay hadduu ummad Soomaaliyeed xasuuqay hadduu dhibaato u geystay waa dameer iyo labadiisii daa Cumar Carte dambiiluha waayo xukuumaddiisa wuxuu ku ahaa ra'iisul wasaare maynaan arag madaxweyne la yiraahdo ra'iisul wasaarihiisii dambi ma laho waa mujaahid
isagiina la yidhaahdo waa dambiile hadduu maxamed siyaad bare jannada tagayana cumar cartana jannada u tagaya laboodaba ilaahay u naxariisto hadduu siyaad bare xasuuq geystay cadaab ku galayana cumar carta qaalina xasuuqa ula lahaa waayo wuxuu ahaa shaqaalihiisii wuxuu ahaa wasiirkiisii wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihiisii u dambeeyey ummadda ma aha in taariikh aan jirin loogu sheekeeyo waxaan doonayaa inaan waxoogaa kooban oo dhallinyaradan muddadan dambe aad moodo in taariikh gacan ku rumisa oo afarta sannadood uu Muuse Biixi doonayo inuu mikrofoonka inta hadalkiisu meel gaadhayo uu ku sameeyo war inaan u sheegno taariikhda runta inaan dhagahooda ka shubno taariikhda beenta ah ee gacan ku rumiska ayaa lagu shubaya inaan uga sheekayno annagaa u soo joognay annagaa u da'a annagaa u hayna taariikh beena annagoo nool looga sheekayn maayo dhallinyaradeeda iyo carruurteeda laysaga ohin maayo dumarka yaga Somaliland annagaa leh annagaa xoreynay annagaa ku dagaalanay annagaa jecel hadday Soomaaliya wax la yeelanaysana ninka daguun baa wax la yeelanaya hadday gooni u istaagaysan ninka daguun baa gooni u deganaanaya 30 kilomitir ka dagaa taariikh ku samaysan maayo barnaamijka sheergareeya waxaan si rasmi ah idin ku taaban doonaa who is Umar Carta Qaalib taariikhdu kulaha Soomaaliya dafiri mayno taariikhda qaar baa ku oranaya horta waxaan leeyahay marka hore labadoodaba ilaahay u naxariisto siyaad barna waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay u naxariisto Umar Carta waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay u naxariisto annagu nacdali mayno sidii Muuse Biixi midna nacdali mayno midna amaani mayno waa laba nin oo isku dood ka soo shaqeynayay waa laba nin oo Soomaaliyeed waa laba nin oo muslina waa laba nin oo mas'uul ahaayeen maanta way naga hooseeyaan laakiin taariikhdu waa shay aan laga tagin qaar baa ku oranaya qofku markuu dhinto maxaa qof dhintay aad taariikhda uga sheekeynaysa iskuulada waxaan loogu dhigi jiray dagaalkii koowaad ee dunida adduunka waxa ugu taariikh weynaa oo caalamka lagu dhigtaa waa Hitler waa madaxweynihii Jarmalka ee Jarmalku ma yiraahdo ninku uu dhintay ka sheekeynina qofku markuu dhinto taariikh buu ka tagaa mid wanaag leh iyo mid xumaan laba way oolaysaa generation to generation iskuulada lagu dhiganaya lagu baranaya waxaan doonayaa taariikhaha la leexinayo ee qabyaalad iyo hebel baa isku qabiiltiin taariikh loogu samaynayo dhalinyarada iyo kacaanka cusub ee aan soo gaadhin dawladii Soomaaliyeed aan soo gaadhin siyaasadihii Soomaaliyeed aan soo gaadhin taariikhii Soomaaliyeed aan waxba ka hayn ninna looga dhigayo mujaahid ninna looga dhigayo daaqood ee ku salaysan qabyaalada iyo nin jeclaysiga iyo waanu isxignaada inaan aniguna bal ka warramo taariikhaha rasmiga ah ee ay raggan lahaayeen waxaan ku horeynayaa what is the difference maxay ku kala duwanaayeen maxamed siyaad barre iyo Umar Carta Qaalib who is Umar Carta Qaalib waa kuma Umar Carta Qaalib sheergareeya waxaan jecelahay barnaamijkan inuu gaaro dhalinyaradii taariikhda beenta ama mikrofoonka madaxweynaha lagu yahay lagu shubay share fadlan qayb ka noqo inaynu la dagaalano taariikhda beenta waxaad qayb ka noqon kartaa inaad sheergareyso inaad gaarsiiso cid kasta oo taariikhda beenta lagu shubay ayaad qayb ka noqon kartaa halganku waa dhowr nooc gacan baa lagu halgamaa iyo qori af baa lagu halgamaa maal baa lagu halgamaa saddexdaba waa halgan ninku markuu mikrofoon soo qaato ee xabaal yimaado ee taariikhni leeyahayna duudsiyo taariikhni leeyahayna amaane kor u qaado ee codka weyneeyo ee iska ohiyo ee ilmo yaxaa sameeyo macnaheedu waxa weeye generationkaaga iyo ku dhali doono iyo kaad ku sii dhali doono inuu taariikhda beenta ah kaga tago oo duwan halganka ugu weyn waxa weeye inaan qofna taariikhdiisa la baabin oo taariikh cusub la samaysan Muuse Biixi waxaan aaminsanay markaan in badan eegay mikrofoonada markuu qaato hadlay markaan eegay hadduu olole ku jiro iyo hadduu xaflad ka khudbadeynayo iyo hadduu xabaal joogo
taariikh gacan ku rimisa oo uu rag u sameynaya buu had iyo jeer ka dhawaajiya qaarna taariikhdooda ayuu duujiyaa hoos dhiga ujeedadu maaha isagu waa sideed jiro baru tagaya laakiin ciddu wuxuu reebayaa waayo waa ubadkayga wey inoo sheergareeya waxaan gudagelayaa huis cumar cata qaalib huis maxamed siyaad barre maxay ahaayeen bal inta aa ka haysaan idinkuna waydu hayn bal intaan idinku kordhiyana waydu ka faa'iidaysa maxamed siyaad barre wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed si kastaba ha ku yimaado qori caarada ha ku qabsado mulatada ha ku qabsado laakiin madaxweyne Soomaaliyeed buu hadduu wax suuqay hadduu wax laayay hadduu dambi galay hadduu cid xiray hadduu wanaag sameeyay madaxweyne ah Umar Carte muxuu ahaa Umar Carte wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda Maxamed Siyaad Barre 7 sanadood buu wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dambi kasta oo xukuumaddaasi ay gashay ninka wasiirka uu waa ka qayb haddaanu doonayo inuu qayb ka noqdo dee uu ka tagi lahaa xilka intuu iska casilo dee ayuu ka tagi lahaa rag baa intay diideen dowladda xukuumaddu siday wax u wado xilkii intay iska casileen dee SNM samaystay oo SSDF samaystay oo USC samaystay oo dee ururo hubaysan oo ka hor yimaada oo dulmiga ay diideen ka dagaalama samaystay isagu marna muu noqon Siyaad Barre wuu la bilaabay xukuumaddiisii to the end wuu la dhamaystay to the end wuu la dhamaystay waxaan tusaale dhawid ku siinaya xilligii laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda isagoo 7 years ahaa wasiirka arrimaha dibadda runtiina taariikh wanaagsan buu ku lahaa xukuumadda Maxamed Siyaad Barre si wacan buu ugu shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ahaa nin mutacallina luqadda afka carabiga aad u yaqaana wuxuu xidhiidh dhow la lahaa wadamada carabta ayuu xidhiidh dhow la lahaa wasiir ku habboon position ku hayay oo dowladdaasi wacan ugu shaqeeyay buu laakiin wax taariikha iyo wax mudnaana halgankii isaaq galay ee uu kula dagaalamay dowladdii Maxamed Siyaad Barre hadday qalad ahayd iyo hadday sax ahaydba from beginning to the end wax alla wuxuu ku lahaa ma jirto wax alla wuxuu ku lahaa habeen kuma lahayn dhaqaale kuma lahayn siyaasad kuma lahayn gacan kuma lahayn saraakiisha SNM ilaa la waqtiga ahayd ilaa Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo ilaa Cabdiraxmaan Tuur markay soo talaabayeen isagu xaguu joogay where he was maanta Hargeysa lagaga dhigaya mujaahid xabaashiisi oo taariikh been lagaga sheekeynaya xaguu joogay miyaad maqasheen isagoo SNM maya miyuu qayb ka ahaa halgankii ay ku dagaalameen isaaq iyo dowladdii Soomaaliya maya dowladda Soomaaliya isaaq baa la dagaalamay ma jirteen baa la dagaalamay hawiya la dagaalamay urura la dagaalamay ujeeddo iyo mabaadi' baanay diidanayeen dowladdaana wax ka tirsanayeen markaynu teena u soo noqonno ee raggan isaaqa ah ee ilmada iyo xaaska daadinaya ee aan kursi ku fadhiyaynin haddaanay odhanin waana la laayay ummadda Soomaaliyeed way iswada laysay xamar xasuuq baa ka dhaco daarad baa lagu xasuuqay gobolada dhexe daarad waa lagu xasuuqay hawiye waa la xasuuqay dir waa la xasuuqay isaaq waa la xasuuqay dowlad xumaatay oo wax la isbaahay the question is marka aynu ka nimaadno halganka ummadda kale waxaynu dhex taagannahay isaaq baynu dhex taagannahay Hargeysa aynu taagannahay halgankii SNM buu ka hadlayaa Musabbix kaasuu ku suntayaa oo sumad uga dhigayaa inuu ahaa nin soo halgamay wuxuu sumad uga dhigayaa Umar Carte inuu qayb ka ahaa halgankii isaaq galay ee uu kula dagaalamay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka sheekayn mayno ma isaaq baa qaldanaa iyo SNM ma Soomaaliya qaldanay that's another topic taa iyada ima taalla maanta laakiin waxa ii taalla topican yaalla Hargeysa ee odhanaya Umar Carte wuxuu qayb ka ahaa halgankii isaaq galay bal halku kaga jiray halku ka soo galay iyo qaybtu ka ahaa aynu ogaano duban kugu yar laabta saaxiib dhageysto share garee waxaan jecelahay taariikhdani waa taariikh maxalli ah
waxaan sheegayaa maaha xadiiska nebiga laakiin waa xadiis af soomaaliya in badan oo dhallinyaradiina ah oo taariikh gacan kurubis loo sheegaya ka faa'iidaysan doonta kacaanka cusub dhallinyarada ku barbaartay somaliland intay jirtay ku dhalatay 30 jirada ah 35 jirada ah ma hayaan dhexdoodana waxa lagu samaysanayaa taariikh baa lagu samaysanayaa nin 30 kilomitir daga halganka aan wax badan ku lahayn ayaa raggii halganka lahaa taariikh u dhex samaysanaya oo kii ugu weynaaye aad u codaysaa tiri madaxweyne noo ahaw intuu soo istaagay xabaalaha marka la tago xataa qofka taariikhdiisa wanaagsan lagama sheekeeyo diiniyan ma ogola xataa taariikhdiisa wanaagsan lagama sheekeeyo xabaalaha marka la tago waa duco waa in qofku wax ku qaato qulubtiisa waa inuu ilaahay ku xasuusto waa inta xabaaluhu ay waajibaadkoodu yahay waa inta laakiin xabaal microphone la qaato nacaratullah laga duleeyahay Umar Cabdi Qaalib wuxuu ahaa wasiir 7 sanadood wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya runtii taariikh wanaagsan oo ku lahaa Soomaaliya wadan taariikhiisa wanaagsan mid kamid ah idin soo qabto waxa kamid ah markii jaamacadda Carabta ay soomada Soomaaliyeed doonayeen inay qayb ka noqoto waa inuu jaamacadda Carabta ku biiro wasiirka arrimaha dibadda shirkii loogu codeynayay jaamacadda Carabta ee ay Soomaaliya kamid noqonayaan codka lagu qaadayay nin Suudaani oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa kacay wuxuu yiri qodbad buu jeediyay wuxuu yiri ummadani ma aha Carab yaan lagu darin oo loo codayn inay kamid noqoto jaamacadda Carabta Umar Cabdi uu kacay wuxuu yiri war ilmaadeen rayaalo bal eego aniga iyo ninka kayaga Carab week Umar Cabdi nin qurux badan oo dheer oo casbo ah oo tabajir salaah u dhaxreystay كان المدو أفريقيا بوه دبنا أنت عربت ولا مقصشين أي اللو عديني صوماليا كم تاجم هذا عربت وحيا أبو قبتي كدفر بينه قفك تاريخه ليه لما تفرق لكن هل جنكي اسم يتجعل كي إساق جري قيب كموهين وحلو حقوق صديق مجرته from beginning سياد برا والله بلاي to the end وحاو تاريخ ذاك سوقات هنا بيه وتاريخ ذاك سوقات وحوري وهذا الشيء تعرف لو سقطه إن لو حري عمر عرتي إن لو حري قد يديه كعضون كبركي 1978 إلى 81 وحسعون كعضون إساق وأي كعضون وذين وإنتاني إسرم سميسمين إسرم إنتاني سميسموي حمر بان لمسرا كيلو إساق كعضون كوذين إن يدتك كعيا مركي الدولة دي حكومة دي وحكا ديدين كعدون بكودين dadka hoos bay u abaabuli jireen waa intaan islam bala sameyn waa 1978 ilaa 1981 oo ah xilligii islam lagu dhawaaqay intii ka horeysay kacdoonka ay xilligii la doonayay in la sameeyo mucaarad isaaq waday xamar baa laga waday ragsraakiila oo isaaq baa ka waday oo markaa dawladda wax ka diiday way ka horeysay tii ma jirteenku iyadu ka hor baxday dagaalantay لكن حلقة كعدهم كيساق بلا ميبه تاريخها حلقة يصب وحي مركز هو صارين هذا عمر عتى والله حرق وهرون عمر عتى سياد بروح حرق لكن معكو حرق سببت كو حرق ما قرن إنسان عمر عتى وحل حرق 1980 وحل حرق 1983 كن يسقال بقول يستيتري صدحدي وحال سوداي كن يسقال بقول يستيتري سقالكي 1989 markii la soo daayayna waxa laga dhigay prime waxa laga dhigay ra'iisul wasaaraha ayuu siyaad barka dhigtay wuxuu qabtay hadana shaqadii ra'iisul wasaaranimo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ayaa xilka laga qaaday muddo kadib isagoo aan xil hayn joogay xamar kadibna waa la xiray xilliga xilka laga qaaday xarigiisu shuqul kuma lahayn halgankii SNM iyo kacdoonkii isaaq shuqul kuma lahayn rag loo xiray baa jiray oo xamar ku xidhnaa oo saraakiilaha oo isaaq ahaa oo kacdoonka iyo dhaqdhaqaaqa loo xiray yaa ka mid ahaa Ismaaciil Cali Abubakar baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Korneel Dharcadde waa wada garanaysaan Ismaaciil Cali Abubakar waa nabar jeclaa waa wada taqaanaa mafle
korneel dhancaddaa ka mid ahaa raggii loo xidhay ee kacdoonka xamar ka waday oo waa ninkii ahaa taliyaha ciidanka bariga ee somalilan ee allah raxme dhintay labadaa ninba waa loo xidhay ragga ka yaacay ee kacdoonkaa ka wadi jiray xamar haddaan inta ugu waaweyn indii soo qaato inta ugu waaweyn xilligaa waa 78 ilaa 81 meel la isugu yimaado oo lagu shalaaweeyo oo la yidhaahdo waxaa la odhan jiray meeshaa waxaa la odhan jiray xarunta Sheekh Isxaaq oo lagu qalaaweeyo qaadka lagu cuno ayay ku hoos ka bajireen saraakiishu iman jireen iyagoo dariiskooda sito dowladda u shaqeeya lagu tashan jiray kacdoonka laga samayn jiray saraakiisha ugu badan ee islam soo gashay xamar baa laga soo diray rag baa soo xagga ka soo diri jiray intaana islam samaysin markaa taran ka sheekeynaya way waxaa ka mid ahaa ina hala nabar jalaabo عبد هلا با كمدها waxaa kamid ahaa cabdirasaaq ninkii loo jiray ninkii taariikhda ku haystaan in haashka lagu baqti jiray waa nin Saad Muuse waxaa kamid ahaa lixle waxaa kamid ahaa dhancadde korneel dhancadde markii labadaa nin laga qabtay ina halaaciyo waa raggii Sacuudiga u yaacay lixle iyo raggii tabaxay baa ahayd dibadna raggaas waxay raggii markii dambe Sacuudiga ka abaabulay asran rag badan bay ahayd laakiin waxaan soo qaaday intii markaa halka wax ka wada jirtay example kan sidii waxa weey taariikhda midka saxdaana waa la sheegaa midka qaladkaana waa la sheegaa kuwan ka hadlaynaba waa isku reer muuse isku reeriyay kamid bay ahayd ina askar buha ina askar wani Saad Muuse oo wada garanaysa Cabdullaahi askar waa Cabdullaahi askar waa ina hala waa lixle waa dhancadde Allahumma salli ala Muhammad waxa weeyeen Ismaaciil Cali Abukar raggaas oo dhab waxa ay raggii qadiyada intaanay asran ba bixin ka bilaabay xamar dhaqdhaqaaqa ka bilaabay kicinta raggii loo xirayna waxa kamid ahaa imka halka ka soo qaadan karaa way badnaayeen laakiin dhancadda kamid ahaa Ismaaciil Cali Abukar ba kamid ahaa ma jirin qadiyad loo xiray Ismaaciil Cali Abukar had ninka la Umar Cabdi Qaalib maxaa loo xiray Umar Cabdi Qaalib waxa loo xiray wuxuu ahaa xiriir fiican wuxuu la lahaa dawladaha Carabta waayo waxa aan Afrabiga aad u yaqaan balaaqi ku ah soo sirka arrimaha dibadda aha xiriir markaynu jaamacadda Carabta ka mid noqonay xukuumadaha ugu badan ee caawin jiray waxaan jaamacadda Carabta xagga dhaqaale xagga horumar dawladda garabada ay ku tirsaneed kuwa ugu waaweyn dawladda Carabta ahay markii uu ka eriyay waayo xiriirkiisii baa kaga siyaad bareeska kaga dhawaaday way aqoon buu lahaa taas waxay keentay in xitaa markii xilka laga qaaday wali ay Carabtii la soo xiriidho ninka la yiraahdo madaxda hanti badan iyo dhaqaale ay bixinayeen oo isagoon madaxweyne ah isagoon wasiirahayn ilaa hadda soo marayay laga tashanayay oo istabamaradi ka dhacday hanti dhaqaale iyo siyaasadda Carabta iyo ka dhaxaysay awgeed baa loo xiray way caawimooyin badan oo soo mar jiray baa isaga jiray marka caawimooyinkii dawladda ee soo mar jiray Umar Carte iyo Maxamed Siyaad Barre khilaaf baa ka dhacay iyaguna waxay aad u aaminsanayeen Umar Carte hantidiga dhaqaalaha soo mar jiray khilaafka markaa ka dhacay lagu xiray ma uu ahayn mabaadii iyo haba yaraatee halgan khuseeya isaaq kacdoonkiisi wuxuu qayb ka ahaa xarigiisina san kaga baxaya Umar Carte maalintii la soo daayay waxay ahayd 1989 waa 1989 ayaa la soo daayay isla markii la soo daayay inagana dagaalku wuxuu nagu bilaabay 1988 1988 bilaabay 1988 ayuu nagu bilaabay bishii shanaad duca ka taxay 89 waa xilligay ugu darayd isaaq waxna ay joogeen dulcad iyo daroor iyo gaashaamo iyo qaxda ku jireen qoxoontiyada ahaayeen dhalinyaradoodina xabadu ay ku socotay ee dagaalka aynu shafka u dhigayna dawladda Saynaba waa ninka xilliga damiirkiisa qaatay inuu noqdo ra'iisul wasaare dawlad sii socota oo sii dhacaysa oo sii dumaysa ayaa inta la soo daayay
weliba uu dhiiggii dadkiisa ku qaatay inuu ra'iisul wasaare noqdo waa xilligii halganku ugu adkaa hadday noqoto halgan isaaq xilligu ugu adkaa ayuu isagu ra'iisul wasaare wahaa ninka 1999 ninka ahaa ra'iisul wasaare dagaalkuna berbere iyo burciyo hargeysa ka soconayay miyaanu qayb ka ahayn xasuuqaagii miyaanu qayb ka ahayn dagaalkii kugu soconayay miyaanu qayb ka ahayn xabadaadii halka mujaahidnimada badduka mujaahidnimada soo geliya meel ka soo geliya ina bixi meel buu kaga soo tuurayaa idinku is weydiiya war 88 kiibu dagaalku inagu bilaabo 89 kiina ninkani wuxuu ahaa ra'iisul wasaare dawladdii ina leenaysay inuu kula dagaalamayna baa ra'iisul wasaare ahaa siyaad barre uu dambigu geystay ma lahayn miyaanu qayb ka ahayn miyaanu kii soo amray yahay miyaanu kii ciidamada barbag soo daabulay yahay miyaanu amarkiisa ku soconayn miyaan ra'iisul wasaaruhu soo amray ciidamada imanaya waqooyiga ee barbarada soo waxaan dileey inta aynu ka sheeganayno maxamed siyaad barre inoo geystay inta in leeb inoo geysto way wada lahayn waa dameer iyo labadiisida hadday jannada galayaanna way wada galayaan haddii cadaabta galayaanna way wada galayaan hadday wax xasuuqeen way wada xasuuqeen haddaanay waxba xasuuqeenna way wada xasuuqeen hadday mujaahidiin wada ahaayeen way wada mujaahidiin isku mid bay ahaayeen waa laba nin oo xukuumad ka wada madax ahaa midna madaxweyne ahaa midna wasiir ahaa markii dagaalku inagu socdayna wuxuu ahaa ra'iisul wasaare kana madaxweyne ahaa xabadda socotaalka laga soo qaaday xamar bay ahayd diyaaradaha halkaas ka soo kacayeen intaba wuxuu la ahaa la mid buu ahaa maanta ayuu hargeysa dhexdeeda doonaya inuu mikrofoon kaga dhigo inuu isaaq wax u qabtay oo halgan oo mujaahid uu siyakan u heliya kumuu lahayn habeen kumuu lahayn 1 shilling kumuu lahayn wax loo xukumo ma jirto waxay soo qaataan oo yiraahdaan Umar Cabdi wuxuu yiri ciidamada hubka dhiga oo hubka u dhiiba shabahdaha والله كلمة بالله نقطة مشاهد وكلمة مشاهد بان مقلتري مالك تاجر وكلمة مشاهد بركة هي يقول نبي إنه قد يسا كلمة دا سوري مشاهد بو هاي وحبي نوقت ومركي يو اس ينعي حمر قبصتي اسر منعي وقوي قبصتي دالك اوردن لقبتي دولة دي اسكتكتي محمد سياد بر روحي ايو سقو دوني انو اسبانيو كلمة دايري والكلمة دا مشاهد ما لقو نقضاها